iyo gobolka Soomaalida war-saxaafadeed ka soo baxay ururka ONLF ayaa waxa lagu sheegay in shacabka Soomaalida ay ku nool dawlad deegaanka ay xaq u leeyihiin inay ka tashadaan arrimahooda siyaasadda isla markaana ay ismaamulaan sida uu dhigayo dastuurka Itoobiya iyo xeerarka caalamiga ah. ONLF waxa ay sheegtay in shacabka Soomaalidu ay haystaan xorriyadda ah cidii ay u dooranayaan in ay qabato hoggaanka. Waxay ugu baaqeen xisbiga talada haya dawlad deegaanka Soomaalida iyo dawladda federaalka inay qadariyaan rabitaanka iyo sharafka shacabka isla markaana ay ka hor yimaadaan tallaabo kasta oo khatar gelin karta amniga iyo danaha shacabka Soomaalida. Arrimahaas waxaan ka wareysanay Cabdulqaadir Hirmooge Cadaani oo kamid ah saraakiisha ONLF. Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikma ayuu u waramay. anagu mowqifkanagu waxa weeye sidaa weeye dhinacyada dhan waan la hadalay inay wada shaqeeyaan baan ugu baaqnay arrimahooda inay si Soomaalinimo oo qoysnimo oo ehelnimo oo walaalnimo oo Soomaalinimo loo xalliyo يعني cid walba u soo jeedinay dadka Soomaalida karti way leeyihiin waxooda ay xalistaan jooxo oo urur weyn ah oo way arago gaamuray baa jooga oo iyo dhaqan iyo dad culus oo wadaniin oo dadkan la xijaalad kale baa jooga bulshada Soomaaliyeed isla weyn oo xalisan kartaan idinku xalista saasaan u soo jeedinay khilaafaad xisbiga Soomaalidu ka waxayba yaa soo duulduulay khilaafka aad looma irfin miyaad la hadasheen Axmed Sida gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka iyo madaxweynaha dowladda Mustafa Maxamed Umar ma la hadasheen si caadi ah labada waan la hadalay dad xallin karaya in muqdeen khilaafkana sida dadka fadhi ku dirka Facebook meelaha ay gaarsiinayaan iyo luqadaha isticmaalayaan iyo maaha si ka degan oo ka miisaaman arrin kale miyana jirin oo ah in 5 xubnood oo loo tirinayo waliba dadkii Axmed taageerayay aan xilkoodii laga qaadin oo arrinta miyana halka laga garanaynin in arrin yar buuran tahay oo waliba baraha bulshada ee xukuumadda dadku ugu dhadhow ay qoraana miyayna isku turturaynin waxa fiican inuu challenge-ga iyo tartanka iyo haro iyo carto inay noqoto idea iyo fikrad iyo raadiin ay noqoto ma aha inay aytan iyo daruriya noqoto nimanka madaxda waxa nooga muuqatay niman si mas'uulnimo u dhaqmaya arrinta xallin karaya dadka inay saydisu noqdaan weeye dadka qaar dhibsanayeen bay markii maamulkii hore xoogga lagu bedelay dadka Soomaaliyeed bedeli karaan baan aragnay marka shaqaalaha soo yeelaya inaanu mowqifkanaga guud si hor dhignaan jecelahay dadka inuu noqdo tashan karaya oo ayada ka tashada Itoobiya dawlad federaalka ka ugu xorriyad badan dhulka Soomaalida noqdaan doonina bayaanka soo saarteen waxaan ahayn oo idinka ka oran afaan idin qorshaysan ma jira oo arrintan aad ku dhex galeysaan hindisiyaal way jiraan dadka Soomaalida ayna ma arday dad aqoon-yahana nala soo xiriiray oo hawlaha in la qaboojiyo soo jeedinaya dhinacyaduna arrinta way soo dhaweynayaan waxaan aragtay waxa Soomaalidu hadda xalisan karto yahay anaguna habka waan jecelahay hadda kadib iyo haddaba inay noqoto dhaqan hadii wax naga soo dhaxbaxo siyaasi maamul aragtiya in si Soomaaliya oo qoys Soomaaliya iyo fadhi Soomaaliya geed Soomaaliya lagu xalliyo taa xorriyadda dagaalameen qayb kamid ah weey waxaan anagu bartilmaameedsanay mabaadiida oo la faa'iido dadka Soomaalida inay iyaga ayahooda ka tashadaan inay gurigooda ka tashadaan mawaaqif hadda ka hor aan ku hadalay oo dadka qaar dhibsanayeen oo mabda naga weyn waxa mabda naga dadka Soomaalida wax sababta ismaamulku leeyihiin sababta nabadda u saxiixnay taanu u tanaasulay dadka inuu lugihiisa ku istaago oo ismaamulo Cabdulqaadir waxa jira in gudoomiye gobol oo kale uu ka dhigan yahay maaragtay Mustafa iyo Cabdi iyo Ciid iyo Xasan Jire iyo dadkii soo tirin jiray oo dhan marka gudoomiyihii la magacaabay xilkan loo magacaabay iyo dawladdii dhexe ee federaalka magacaawday yaana la soo yeedin oo yaanan wax la isla tashanin say ku suurtagali kartaa أنا وده تشديد دين وحوي هرت ضدك يجا أنت وبضان يا مدح بناني هيل كراينا هلان ويا أنت كم قنينا وبلارنا ونريحنا وندودنا يا عاد وبلارنا ندورنا إن لوسو يو kaasina waxa uu ahaa Cabdulqaadir Hirmooge Cadaani oo kamid ah saraakiisha sare ee ururka ONLF waxa uu waramayay wariyaha BBC uga soo warama magaalada Jigjiga Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikma.